muddadan abaaru ay ka jireen guud ahaanba geeska Afrika gaar ahaan gobolka Sanaag oo imika ku sugannahay waxa samaysmay degmooyin fara badan oo tan imika iga dambayso kala oo crusherka loo yaqaano waxay ku taalaa duleedka magaalada Garadag waxa la sheegay muddo dhowr bilood ah in dadku ay halkan deganaayeen ninkana kamida guddiga deegaankan walaal magaca Nuur Salmaan baa la yahay waxaan kamid ahay guddiga crusherka oo 7 ah iyo gudoomiyahooda marka muddo intee lag ba dadku halkan deganaayeen 3 bilood bay deganaayeen dad intee lag baana degan waxa degan 450 qof dadkaasi marka Nuuro halkay ka kala yimaadeen dadkaas waxay ka kala yimaadeen ilaa iyo xeebta ilaa iyo bari ilaa iyo galbeed ilaa iyo bancada meesha la yaahdo marka degmadu waa balaaran tahay yaa marka gargaar halkan ku siiya halkan waxa gargaar nagu siiya dadku 100 konton waxa qaatay keer kontona waxa qaatay ka dhalayd inta kale irsaaqad ilaahay iyo caalamka wax ka sugayeen gartay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida idin muuqata waxa jira wali dadka qaarkood oo dhisanaya meelihii ay degi lahaayeen gabadhana kamida oo sida arkaysaan gacanta ku haysa dhismaha meeshii ay degi lahayd walaal magaca hindisa walaalkeedii la dhahaa hindisa marka adu imka timiya dhawaan baan imi way xageed ka soo qaxday waxaan ka soo qaxnay hawd ka xagee waxaan ka soo meel la yiraahdo coodanle waatay deedamadna abaartay keento waaniga dhisanaya bal hadda ka war xaaladiinu say tahay hadda aad bay wadagtaa dee abaarta unbaa haddii laga yaraado dee magaalada ka yarna hele waxna ma haysano adduunkana wuu naga dhammaaday dee haddii labadankeeda leeyahay waxaa naga dee hadhaysan dhisanayna haddii aan meel aan bacad ka harsano inaba wax xoolo markaa deegaankan la timaadeen miyay jirtaa waxaan raad lahayn oo dee waxa 20 iyo waxaan dhaamin waatay waatay marka xoolaha halkan ku haysataan intii hadhay wax yar oo halkan inoogu xireysan waa xariyaha yar yar inoogu xireysan xaba waa 20 iyo waxaan dhaamin oo waxaan hadeer noo taran dhowr iyo 20 qof noo ka kooban ama dee ilaa dhowr qoys baan heerkiiba dhowr iyo 20 buu ka kooban yahay waxaanu joognaa meel ku taala duleedka magaalada Fiqi Fuliye oo ka tirsan gobolka Sanaag roobabka xoog leh halkan ka daaya ayaa waxay keeneen dhulkii dooxooyinka ahaa oo dhamme inay noqdaan meel aan la mari kareynin gaarigii aanu wadanay waa san yahay laba gaari baanu ahayn gaarigii labaadna meel noo muuqata ayuu isaguna ku jiraa magaaladii aanu sidnay raashinka gargaarka ee Fiqi Fuliye halkan way nooga muuqataa laakiin dhulkan oo carra jileeca awgeed ayaa dhibaato xoog leh waxay ku noqotay in gaadiidkii ay mari kari waayaan marka waxaan isku daynaa bal hadda inaanu ka qodno markii gaarigii uu naga asmay uu ka bixi waayay ayaanu deedna iskaga soo lugaynay deedna gaarigii labaad ee nala socday ayaa wuxuu taagan yahay meel indoora jirta oo isagu ka baxay dhiidhigii marka kaasaan u sii lugaynaynaa magaaladii aanu ku soconnay cuntada gargaarka laga qaybin lahaa Fiqi Fuliyana indoora imika noo jirtaa deedna cagtaanu maalaynaa gawaadhidoo kaliya ma xiitaa dadka ku siganaya inay degaan meeshan aanu marayno gawaadhiduna ay naga galeen waa meel dooxa ah waa dhulkii abaaraha ugu daraa Fiqi Fuliye inkastoo ay noo muuqato haddana ilaa dhowr kilomitir bay jirtaa marka sida kaliya aanu ku gaari karaynaana waa inaanu lugayno weeye xitaa gaariga kale oo isagu markii hore halkan dhiidhigaa ka baxay ma hubno dhulka ka horeeya inuu sidan oo kale carra jilcu yahay in kale marka cagtaanu maalaynaa dhibta kale jirta waxa weeye halkan aanu joogno laba reer oo midba masaafad fog uu ka muuqdo mooyaane dad degan oo nacaawiya ma jiraan marka haddii xaalku xumaado waxaanu qayladhaan u tegaynaa u lugaynaynaa magaalada cuntada gargaarka aanu sidnay Fiqi Fuliye gaarigii hore waxaanu kaga nimay masaafad ilaa 10 kilomitir jirta deedna gaarigan oo markii hore ka soo baxay dhiiqada ayaa haddana nala galay
weli magaaladii aan ku soconay fiqi fuliyo way noo muuqataa laakiin maadaama dhulkan uu yahay dhul banana masaafad aad u fog bayna weli jirtaa ninkan askariga ah ayaa na caawinaya oo hadda dhooqadii ka qodaya qoladii kalena gurmad bay u baahan yihiin marka annaguna gurmad baanu ahayn taaga oo waxaanu isnidhi bal magaalada waxaa ka doontaan dad gaarigii kale ka saara meeshii uu galay deedna waa tan annagu aan ku jiro waxa waxoo dhan ka sii daran hagahayga waa arki karaysaan kabahayga waxay sitaan laba kabood oo kale oo dhoobo ah oo culayska aad moodo in 5 kiilo laygu xidhay salaamaad roobkanina deegaankan ilaa saa ku wada helay marka dhulkoo dhan baa qoyan bal hadda waxaan isku dayaynaa haddana inaan kana riixno weli jidkaan ku sii jiraa fiqi fuliye weli wuu noo muuqdaa saan hore idinku sheegay maadaama meeshu ay ban tahay taawarkii dheeraa ama birtii dheeraa ee isgaarsiinta telefoonada meel shisha nooga muuqda gawaaridiina weli halkii bay ku jiraan iminka ilaa dhowr kilomitir baanu soo lugaynay waxaanu ku yaro roonnahay dhulkii dhiiqada lahayntoodii badnayd baan ka soo baxnay oo xitaa in la lugeeya ay aad iyo aad u adkayd raxma waxaanu nahay aniga iyo cali dheer oo kamaramaanka iyo raxma oo hay-addan cuntada qaybin lahayd ee ARC shaqaalaheeda ka mid ah raxmi London bay ka timi muddo dhowr bilood ay imika halkan ka shaqaynaysay raxma tanoo kale hore mu aragtay weli tanoo kale maan arkin waad aragtaa waxaanu eegnay gabigaygaba inaan dambas ku soo galgalanay kabihiina maba la socon karo waatay insha Allah waan ka bixi doonaa ma insha Allah waan ka bixi doonaa dhowr kilomitir oo kale ayaa inoo hadhay sidaan ku qiyaasayo telefoonno badan baanu diranay oo caawimaanu dadku weydiisanaynay bal hadda waxaan eegaynaa kana wuxuu noqdo rooble telefoonkaasi uu go'ay haddaan ku celin doonaa laakiin dhowr meelood baa lanagaga soo maqanyay laakiin dhibtu waxa weeye jihada aanu magaalada ka xigno maadaama aanaan deegaankan si fiican u aqoonin dhammaantayo intayada wada socotaa ayaa waxay adkaysay sidaan ugu tilmaami lahayn dadkana soo doonaya waxa weeye afartii markii gaarigii ugu horreeyay uu naga galayna kowdii meelahaasay ahayd kowdii iyo rubuc marka ilaa 3 saacadood ku dhowaad ayaanu imika halaagan ku jiraa laakiin si aanu gobolku halkan noogu dhicin waa inaanu haddana sii lugayno waxaa imika wax walba nagaga daran taawarka waa noo muuqdaa laakiin biyo aanu cabno ma haysanno gaarigii hore ee dhiidhiga naga galay ayay biyihii noo saarnaayeen gaariga labaad markaanu soo gaadhnay intii aanu gelin biyo may saarnayn biyihii kaa hore wada saarnaayeen labadii darawale labada gaari waxaanu kaga nimi gaarigii hore gaarigan dambena waxaa la jooga shaqaalaha hay'adda rag ka mid ah iyo nin askari ah iyo nin kaloo annaga nala socday weli waa lanagu soo maqan yahay cidna soo gaadhayna ma jirto ahaantiina intii saxaafaddan ku jiray oo dee ilaa dhowr iyo 20 sannadood imika tan maanta igu dhacday oo kale weligay ma arag oo anigiina sidii gawaarida aan
dhiirigii galay labadii gaadhiba naga galeen cid noo micintaanu la'nahay intaasoo dhanna barnaamij baan noo maraynaa waxaa laga yaabaa adiguna inaad iska daawanayso adigoo city roomkaaga fadhiya oo koob shaahoo diiranina uu kaaga yaallo weli cagta ayaanu ku khasbannay inaanu sii miciinsanno anigu waxaan niyada isugu dhisayaa inta raxme ay socon karto waxaan isleeyahay adna waad socon kartaa raxma sidaa taymka waxaan dhawaan yaro haraadsanaya laakiin ama kay walaahi barnaamijka waa muhiim inaan soo duubno markaa waanaan lugaynaa imika waa gabaldhac weeye weli telefoonadii baa iska soo daba dhacay qayladhaan badan baanu diranay ha hallow gaadhiga waanu aragnaa ee dhinaca walaal midigtiina waanu idin aragnaa xaggan u soo laabta galbeedkaanu idinka xignaa baan filayaa imika labadii gaadhiga lanoo soo diray mid baa imika noo soo dhow waxaan rajaynayaa halkaan naga arkaan dhibaatadu waxa weeye dooxada iyaguna ka baqanayaan inay galaan kama dambeyntii annaga waa lana soo gaadho nimankan odayaasha baa noo soo gurmaday wax kastoo na gaadhayba dooxadii maanta oo dhan aadi lahaa dooxo koonfurta ka xigta fiqi fuliye waxaa lai sheegay in la yidhaahdo carraweyn markaa inay qabatay waxa weeyaan dhul bannaan ah oo wada dhiiqa ah markaa inkastoo ilaahay dadka abaarihii ka soo jebiyey haddana waxa weeye si gurmad loo sameeyo iyo si dadku ay imika isugu soconayaan ayaan la garanaynin gaadiidka kuwa ugu wanaagsan oo allan cruiserada ayaa labadiiba naga galeen iminka gaadhi ciidan oo loogu gurmado qoladii kale mooyaane cid kaloo u tegi karaysaa ma jirto xaalku ay bixiyoo bix shaqaalihii kale hay'adda ee gargaarkan qaabilsanaa inay qaybiyaan weli waxay ku xaniban yihiin bankii carraweyn marka mid ka mida saraakiisha hay'adda ARC oo nala socota ayaa sheegi doonta deeqda maanta ay guddoonsiinayaan magaaladan maanta anagoo ka soconaa hay'adda ARC American Refugee Committee waxaan keenay magaalada fiqi fuliye 200 oo qoys raashin gaaraysa iminka waxaad aragtaa 100 qoys waxa ku jirana cuntadan keenay bariis daqiiq sonkor caano timir rabadaantoo dhanna deeqaysa iyo saliid ARC wixii noo keentay waanu ka mahad celinaynaa wayna noo keentay waana na soo gaarsiisay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu joognaa magaalada Ceerigaabo ee magaalada madaxda gobolka Sanaag welina waxaynu ku guda jirnaa barnaamijyadii aanu ku eegaynay saameynta guud ahaan abaaruhu ay ku yeesheen geeska Afrika
gobolka Sanaagna waxa uu ka mid ahaa meelaha ay ugu daraayeen abaarihii ku dhuftay gobolada bari ee Somaliland gudoomiye Axmed Cabdi Fly ayaan halka waraysi kaga qabanaya waa gudoomiyaha gobolka Sanaag gudoomiye roobkii waa curteen inta badan gobolka way ka da'een sida xaaladdu imika tahay waxa ka horeeyay saameyntii abaartu markii hore ay ku yeelatay guud ahaan dalka Soomaaliland waxay ahayd halkay ka bilaabantay xoolihiina way ka dhamaadeen inta badan aan ilaahdii boqolkiiba 80 in ka badan ayaa dhintay iyadoo xeebaha ku iyo buuraha ku sii jeeda iyo intii Puntland qabatay baa la oran karaa guud ahaan gobolka Sanaag xooluhu way ka sii hareen sida awgeed waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu farays ugu furay mid kale furi doono xoolaha dhamaaday dadkii quudanayay halkii bay joogaan bartoodi ayay joogaan sida awgeed waxay cunaan maadaama ay biyo heleen lama oran karo biyo dhaamis baa maanta inkastay jiraan meelo biyaha laga dhaamiyo haddana waxaa jira dee biyo bay haystaan baa la oran karaa baadkii xoolihii hadday helaan waaba cid daaqlaaba waa iska yaraani doontaa dadkaas wuxuu u baahan yahay dejin dibadejin buu baahan yahay inay cunno ay helaan oo ilaa iyo inta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala si kale oo khayr qaba wax oranayo waa raashin quutaan bay u baahan yihiin hase yeeshee dhibaatadu way taagan tahay dadkiina waa mucsir intooda badan khayraad qaarkood ma neef xoole u harin waxaanu joognaa meel ka baxsan magaalada Ceerigaabo oo ku dhow buurta caanka ee Daalo gobolka Sanaag waxa uu ka mid yahay ama uu yahay baan ilaahdee marka Soomaaliland laga hadlayo meesha xooluhu ay aad iyo aad ka ugu badnaayeen oo ay iska caadi ahayd qofku inuu dhowr tiro yeesho waxaan halkan ku soo maray islaantana idahan la joogta eedo iska waran idii intaasaa ka hadhay waa dunidu waa xaaladays magaaladana de xoolihin mar hadday lumeen magaaladana qaryan kuma lihin dabadeed dee waxaa un baanu iska ag joognaa waxaa baanu un nidhi goortay martaan arka imise neefaad markii hore adigu lahayd eedo iduu waxay ahaayeen arigu wuxuu ahaa tiriya badh buu ahaa tiradii iyo badhkii riyihiina wax yar baa ka nool 20 idiina waa kuwa intaan la joogaa adalkaysa markaa waxa weeye 4 iyo 4 waa 10 idaa riyiina xaggay joogaan riyii dee buurtay ka baxeen buurtay eedo ka baxeen buurta weligaa ma deegaankana aad taallaneedo deegaankan haa abaartan oo kale innaba hore ma idiin soo martay maya ma aragaydo abaarta taana soo martay haddaan yaraa iyo haddaan weynaa ma arag dadka kale deegaankani ma sidii naasay markaa ka wada yihiin xoolahoodii wax walbaale waxay nala miciin joogaan iyo waxay nagaba liitaan iyo waxna dhaama mid walba waa leeyahay gartay imika waa ka roobkii daaye xoolaha iyo idinkaba wax dhibaataa ma idiin geystay maya iido xoolababa haddaanaan haysan muxuu noo geystaa aqalladaasaanu ku xeraynaa dee wax ogayga isla goobtan waxaanu kula kulannay niman odayaala oo iyaguna deegaanka iska warramaadeen xamdi alla weeye ilaahay baa mahadle cabdisalaan hereeriyow waa maasha alla weeye geedkanaad seetaadeer muxuu yihi geedkan adeer wax la yidhaahaa dibow geedkan shinnida ayaa ka malbisa oo malabka ka samaysa waxaa lagu daweeyaa waxyaalo badan hudhaha iyo wixii la mid ah dadka muddo
iyana waa lagu daweeyaa oo waa la saaraa dabadeed dib bay u soo noqotaa qodaxdu maxaa markaa la isticmaalaayo lagu dawoobaa macaleentiisa ma qodaxda waxa weeye caananadiisa waatay iyo manuu bixiyo labadaasaa dawada ah caanaha ayuu leeyahay qodaxda laga gooyo caanahaasa ka soo baxay kuwa dawadiina markaa waa caanaha miya waa caanaha wey waatay geedka waxaad ii sheegtay inuu iminka ku daba yar yahay oo sii dabar go'ayo markaa idinku maxaa ku samaynaysaan annagu waxaanu beeraynaa dhul baanu ku kaydinaynaa waa beeraynaa si uu u soo noqdo intaa tiradaa yar ee meelaha ku taaltaala ayaa ka sii hadhay uurta surudeed buu aad uga bixi jiray siraadle buu ka bixi jiray waddanka dhirta cananada leh ee ka dabargo'day buu ku jiraa dhirtii cananada lahayd oo dhan waxaa nagaga dhacay xanuun way dabargo'day dhirta kale markaa sidiisoo kale deegaankan kusii daba yar kuwee ka mid a waxaa ka mid a dharkeynka geedka la yidhaahdo waxaa ka mid a berdaha waxaa ka mid a berdayarada geedka la yidhaahdo dhir noocaasa adigu waxaad ii sheegtay in geedkani uu ku jiray gabayadii allaha u naxariistee xaaji aadan afqalooc xaajigu muxuu lahaa markuu geedkan ka hadlayay cabdisalaan oo geedkani markii ammaanta dhulkeenna ammaanayey ayuu ku soo daray gabayadii sibay dhextaal u ahayd manka dibowga ee ay shinnidu midda ka abuurto dalka ceerigaabo ugu mudan uguna muugdheere mermer weeye dhagaxeedu iyo muunad goonni yahee marfaca laga ridaa wuxuu tagaa 10 masaafood mulatarigu meeluu dego muhima weeyaane meeshii uu sidaa ammaanta ka tirinayey weeye waa dhirta qaaliga ah buu ku jiraa geedkani waaye adeer aad iyo aad baan idiin salaamayaa waaye aad iyo aad baa umahadsantihiin